tartan la yaab badan oo ka dhacay koonfurta Siberia qofka waxa uu qaadayaa wan uu dhabarkiisa ku xambaarayo waxaana tartanka ku guuleysanaya qofka ay u suurto gashay inuu tirada ugu badan wankan la fadhiisto haddana uu la istaago laakiin sanadkan markii ugu horeysay waxa ku guuleystay nin ajnabi ah oo muddo 1000 sano ah oo la soo ciyaarayay ay u suurto gashay inuu ku guuleysto tartanka sanadkan waxa ku guuleystay caalim dagaalbaarka ku takhasusay oo Switzerland ka soo jeeda lana yiraahdo Titorgino Casabari oo markii ugu horeysay ku guuleystay kadib markii ay u suurto gashay inuu la fadhiisto sidoo kalena uu la kaco tiro 104 jeer oo la tiriyay isaga oo wan nool dhabarka u saaran yahay waa sida ay sheegtay jareerada Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxday Titor Casabari waxa la siiyay shahaado muujinaysa inuu tartankan ku guuleystay iyo abaalmarinta uu ku guuleystay oo ahayd hal neef oo ari caalimkan ayaa Siberia u joogay inuu ka qayb galo dagaalbaar laga qodayay godad taariikhi ah oo lagu baarayay taariikhda dadkii goobta ku noolaa xilliyadii hore doorkan waxa uu goostay inuu ka qayb galo tartanka si uu u tijaabiyo awoodiisa iyadoo dadkii deegaanka ay aad ula yaabanaayeen markii hore waxa uu ka badiyay dadkii deegaanka u dhashay oo ka awow soo ciyaarayay tartankan oo tiradoodu ay gaareysay 30 qofood iyadoo wanka la qaadayo miisaankiisu uu dhamaa 50 kiilo xafladaha tartankan ayaa socda muddo 4 cisho tartanka kale oo kala duwan ayaana barbar socda sida fallaartuurka shiishka lagu tartamo iyo sidoo kale musaaraco sidaas oo kale tartankan waxa ku jira mid dumarka loo qabtay oo neef yar oo dhayla ah toonka ay ku qaadayaan